kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandhow Media. Waxaa saacadihii ugu dambeeyay social media wareegay aadna u qabsaday muuqaal oo iska soo duubay Rashka Boy iyo gabar kuwaasoo sheegay inay dadyow qaarna sheegayeen inay xiriir jacayl la wadaagay gabadhaasi oona furay Xafsa, balse arrinta xaqiiqda ah ayaa ah asna uu sheegay muuqaal uu soo duubay bartiisa YouTube-kana soo geliyay waxa uu ku sheegay gabadhaas muuqaalka kula jirta in soo xiriir ka dhexeyn balse ay yihiin walaalo. Muuqaalkaasna oo ahayn muuqaal dana gaar ay kala dan lahayn balse wuxuu ahay muuqaal iska normal ah ama muuqaal iska caadi ah waa sida uu sheegay. Waxaa jirta sidoo kale inay kala tageen ama khilaaf uu soo kala dhex galay Xafsa iyo Rashka Boy. Waxa uu barta ku leeyahay YouTube-ka soo dhigay qoraal dheer oo ku sheegayo arrimo badan. Qoraalkan ayaa u qornaa sida tan: alxamdulillaah, alle ayaa mar walba mahad iska leh, noloshayda alle ayaa ka mas'uul ah, wax walba oo igu dhacay alle ayaa mar hore ii qoray, badankii waad i eedeyseen laakiin xaqiiqda jirta mar walba alle ayaa og, weligay qof ma dulmin, alle ayaan ka magan galay midaas inaan qof dulmiyo, laakiin adduunka ayaa sidaas iska noqday, lama yaabaye qofka hadduu daacad yahay waxay u moodayaan inuu doqon yahay ama nacas yahay. Dadka qaladka iga fahmay waxaan idin oranayaa xaqiiqda jirta alle ayaa og, fadlan dulmiga iga dhaafe, alla ka cabsada, midna ogaada mar walba rag uun ma qaldana. Haddaba qoraalkan uu soo dhigay Rashka Boy ayaa muran badan sii gelinaysa xiriirkii Rashka Boy iyo Xafsa. Dadyow badan oo kiis ay ku noqotay arrintan social media lala wareegay in uu furay Xafsa iyo Rashka Boy is fureen ayaa waxay ku noqotay lama filaan oo dadka qaar ilaa hadda waa ay rumaysan laayihiin, waxayna isweydiinayaan sababta ka dambeysay inay is furaan Rashka Boy iyo Xafsa. Balse arrinta aan ogaanay ayaa ah in xurguf yar ay ka dhexeyso balse mar walba jaceylkoodii uu ka dhexeeyo Rashka Boy iyo Xafsa. Dad badan oo taageero weyn u ahaa Rashka Boy iyo Xafsa ayaa khilaaf kan soo kala dhex galay Rashka Boy iyo Xafsa eedeyn dusha uga tuuray Rashka Boy, waxayna ku eedeynayaan inuu nacas yahay kana dambeeyo khilaafkan soo kala dhex galay gabadhiina uu sidaas ku ceyriyay. Dadka qaar ayaa waxay comment ugu qorayeen alla mindhaa mar dambe ma aamino rag YouTube leh ama social media caanka ah, balse arrinta xaqiiqdeeda ma aysan ogaan dadkaas iyo waxa ka dambeysay khilaafkan. Isla markiina waxay eedeyn dusha ka saareen wiilka Rashka Boy. Sida uu qoraalka ku sheegay waxa uu aad uga xanaaqsanay dadka beenta ka sheegaya ama dhahaya maxaa kugu kalifay inaad furtid Xafsa ayagoo aan waxba ka ogeyn arrintan iyo xaqiiqda jirta, balse uu sheegay in mar walba alle uu ogyahay xaqiiqda jirta. Haddaan nahay bahda Fandhow Media aad ayaan uga xunnahay khilaafkan soo kala dhex galay Rashka Boy iyo Xafsa, waxaana leenahay isku soo laabta, dadku way isdagaalaan wayna heshiiyaan. Waxaa qurux badan nolosha qofkaad la wadaagtid inaad ku dhammaysatid cimrigaaga, jaceylkaagiina hadduu khilaaf yar soo kala dhex gala ama caqabad yar ay yimaadaan inuuna halkaas ku burburin balse uu xiriirkii jacayl sii socdo. Way adag tahay qof aad nolosha muddo soo wadaagteen, xiriirna aad soo lahayseen, si kadiis ah ama si fudud inaad ku hilmaamto, balse waad xasuusnaanaysaa sanadooyin badan. Halkaad nagala socotaana saaxiibayaal waa channelka Fandhow Media oo aalab soo gudbiyo wixii cusub iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh. Fadlan hadaa ku cusub channelkan subscribe saar gambalelkana furo si kuu soo dhaca waxyaabaha soo gelin mar kasta. Haddaad hore noola joogtana muuqaalkan like saar si uu u gaaro muuqaalkan dad badan. Like waa noo muhiim, like taa ka hilmaamin. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina.